والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمانتين با runtii waxaan rabaa inaan yar oo brief ah idin siiyo maadaama inaan muddo is arkin dadka igu xiran waan salaamaya dhammaantiin waxaan rabaa inaan in yar idin sheego soomaaliyay waynu is haysanaa 24/7 qabyaad baynu ku taaganaa ma jiro wax la xoreeyaa laakiin waay baynu hore ugu socon laanahay inagoo maanta 23 taagan waay baynu ugu noqonnay halkii awayaashan joogeen maxaa dib inoo celiyey waay dib ugu noqonna dadka qurbaha joogow waxbaanu faa'iidaynaa baynu ku talagalnay inaynu wax faa'iidno oo dadka behind ku celino wax ayaynu ku talagalnay laakiin maqabyaalad baynu wadnaa maqabyaalad baynu hurinaa dumarka Soomaaliyeed waan la yaabaa gabadh baa halkaas soo fadhiisanaysa qabyaad bay ka hadlay sorry raalli ahaada qabyaad bay meel u soo fadhiisanaysa anigoo reerkayagu hebel yahay waxa weeye dumarow magaciinbe wax badan baan idiin sheegaa wax laakiin waxba maqashaan naa qabiil ma lihid oo tol ma lihid oo ehelkaagu waa ninkaaga iyo carruurtaada runtaada doonayso ama igu maag ama igu diid naag walba carruurta waxay hoosteeda ka soo qaadaa u qabiila waxa ay ninka ay la nooshaana u qabiila haddaad carruurtaadana korriinkooda ka adkaatid iyo gurigaaga ka adkaatid adaaba ku barsida stress bayna laayay qurbaynu joognaa carruurtaynu la daalaadhacaynaa tabcaan baynu taaganay hooyo kasta dhib bay kusoo martay hooyo kasta way soo silicday hooyo kasta way soo oyday hooyo kasta kor iyo hoos bay oyday qurbaa kuma korsan naagaas xuladaa ka oyday carruur kumay korsan ma jirto hooyo odhanaysa raaxaan ku dhalay qurbaan ku koriyey oo raaxay igu koreen no absolutely ma jirto naagaheennii hooyaynu dhahaa kida waxaa taaganta habeen oo dhan markuu teenage gaadho marka uu yar yahay ee uu dhasho waxaynu ku dagaalanaa kan kala gaadhsiiya gaalku kaa qaadan dharka u iibi ee ilaali iskuulka gee salaada la orod kuwash kabaa xidha sii hagaaji uu sii feedh sii qurxi daalaka ilaalis teenage markuu gaadho waxaynu gaadhnaa inaynu daaqadda taagnadno war goormaadi malay war kumee war hebelow war hooyo kumee war soogal war kaal goormaynu nasanaa inagu goormaynu qabiil ka fekeraa goormaynu shafka u tumanaa nahnaa wen aabahood waa kaa tegey waxba cid ma haysatid walaalkaa kula korin maayo dee brothers kula korin maayo ma jirtaa gabadh odhanaysa carruur baan odhantay ninkii igaga tegey ayaa walaalahay kafaalo qaateenoo raaxan ku jiraa ma jirto hooyaday waxay odhanaysaa inamada lagu abayusaya laakiin naag cidina wax ma ogola naag waxa u ogol oo wax ubadkeedaasoo ilahay ubad khayr qaba uga dhigo keliya wax u ogol markaa ma ubadkaagii adigu aad dhashay baad maalin walba kalfan caya u haysanaysaa no haddii xitaa aynugu xumaadeen raggii laynaguma xumaade dee inaad aynu dhashayna korsano iska aamusno adduunka wax la qaybsano maxaa inaga bi'iyey ina hoojiyey inaga siriciyey ina saxariiriyey ninkan waad ugu dagaalamaysaa marka raggu dee lacag inaga rabo ee ay qaalan naga rabaan ee ay mag inaga rabaan wayna jecel yihiin haynantayadii hablahayagii qorxaa badna wanaagsanaa baa layna yidhaahdaa waa geedow xabagta markaa kugu arkona kaa goostay marka kalena kaa tegey run baan idiin sheegayaa ma jirto naag guri walaalkeed ku raaxaysta ma guri abeed ku raaxaysta naag walba carruurta dhashayda la badoo la hogto la sircida markaasaynu nala lahaynaa habar walba iyadaa dhakhtarka ka soo baxda umula oo awoodi karin inay jikada gasho ayay haddana ku khasbantay inay iyadaasi wax siiso iyadoo aan kici karin iyadoo umula iyadoo muraar dilaaca iyadoo dhakhtarka laga soo saaray weliba loonaya beritan dhakhtarkii baa laga rabaa ma fahanteen markaa waxaa dolan lahaa soomaaliyay dumarow ka fekera noloshiina dumarow ka fekera your life iyo your children's life baa laydinka baahanya intaa kaliya idinku warinaya waa idin salaamaya